waxaan galeynaa tobanka ugu dambeeya bisha ramadaanka oo barakeysan marka sidaa darteeda waa in laga faa'iideystaa waxaan soo qoray 5 qodob oo muhiim ah tahay insha Allah taala 5 qodob ku dadaal inaad maalin kasta aad samaysid tan koowaad ay tahay waxa weeye waxaad ku dadaashaa inaad sadaqa aad baxsatid sadaqa ha noqoto 1 riyaal 1 kron 1 pound 1 dollar waxay noqotaba oo habeen kasta ba hal bixi laba bixi saddex bixi faa'iido weyn ku jirta maxaa yeelay habeen kamid ah waxa helaysaa laylatul qadar oo waxa lagu qorayaa 83 sano adigoo sadaqa bixinaysay sadaqada habaqaylin bix insha Allah taala tan labaad waxa ku dadaashaa insha Allah taala habeen kastaba inaad soo kacdid labada markay tahay ama saddexda waxaad dukataa laba rakacood oo salaatul layl ama 4 ama 6 ama 8 inta awoodid rakacada bada insha Allah taala maxaa yeelay faa'iido weyn baa ku jira inaad dukatid insha Allah taala waxa lagu qorayaa adigoo habeen kasta adigoo dukanaysay 83 sano Allahu akbar tan saddexaad waxa sameeysaa habeen kastaba وحاسميسا وحاخرنيسا سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سدح جير أخري حدي ليت القدر هو سؤاده وحالو قرايا أذو قرآن كودن لما يسمح النبي صلى الله عليه وسلم ده قفك أخري سورة الإخلاص سدح جير وحلم أنت هذا قرآن كودن لما يسي مركا هبين كستبو حالو قرايا سديت استحسنوا أذو قرآن كودن لما يسي الله أكبر تن أفراد وحاسميسا دعاء ذكر بدي استغفر الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله اللهم انك عفو بدي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وحده عائشه وحده وحد بدسا اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا بدي عربك هيستاجنن محايا لي ذكرك اله وجعليه اله ورمس وحده الا بذكر الله تطمئن القلب قلبي غير وحاسوك عيا عنتو ان فقه وح قلبي واه حسوست اله افكن عربك ان كو هينو ما ذكرك هجوجنن ود ان شاء الله تعالى waxa lagu qorayaa 83 sano adoo ilaahay arka ku haysi dadkiisa Allahu akbar tan shanaad oo taas aad muhiim u tahay insha Allah taala marka adeeg waxaan had aad faa'iideystid dhikrka quraanka iyo waxna aad maqashay walaalaha kale u sii gudbay haba qaylin maxaa yeelay adeeg waa sameysay qof kale u gudbisay qof kale uu sameeyay adaa lagu qorayaa qof kale uu sii gudbiyay adaa lagu qorayaa hal qof u dirtay qofkaas toban buu u sii diray tobanka qof adigoo isku hurdid maalinta qiyaamaha lagu leeyahay ajirka waa shaqaysta waa kaas ma sha Allah بركود هذا إن شاء الله ما البجوتة وإن سلامي ولكن على المعشر بحنا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.